الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waa maalin kale oo weyn oo taariikhi ah. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan intii soo abaabushay muddada dheer 5 sano ee hadda halkan laga sheegay ka soo shaqeynaysan maanta inaan soo istaagno iyo inta kale ee sharafta badan ee ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa caalamkaba ah ayaga lafahooda halkan u yimid ama wakiiladooda soo dirsaday aad iyo aad ayaan idinku mahad celinaynaa. fursadda ama waxa lagu dhiiriyay mashaariicdan waxa aad ugu weyn ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii xilli aad u dhib badan fududeyn dawladeed fududeyn hay'ado caalami ah iyo kuwa dawladeed intaba ayagoo aan haysanin marar badan sameeyay horumar badan dalkana gaarsiiyay meel aad iyo aad u muuqaalkeedu u sareeyo. dalkani dawlad xoog badan ama dawlad sharciyad xoog badan leh kama ay jirin markii ganacsatada Soomaaliyeed ay bilaabeen adeeg in la keeno dalkan oo ay dadka u adeegaan oo dalka ay gaarsiiyaan adeegyada qaarkood ay ka jiraan inaanay caalamka hagaagsan aanay ka jirin. taas marka maanta waa maalin kale dalkeena ayaana ka muuqataa tallaabooyinka hore u qaadayo. wali waa isdhaliilnaayo waxaan dhahnaa waa soconaa laakiin waa gaabinaynaaye inaan aad u sii soconaan jeclaan lahayn. Soomaalidu waa ku ammaanayaa runtii inay ku fiican yihiin wax walba waxa ugu wanaagsan waxa ugu quruxda badanne ina ay jiriyaan ayagoo ka dhex arkana waxa ugu badan ee faa'iidada in waxaas wanaagsan laga dhaxelayo. waaye badan iyo waa badan ayaa u soo bariyay dadka Soomaalida oo dhib badan laakiin alxamdulillah maalmahaas dhibka badnaay waana sii dhaafayaan waa ay sii socdaan maalin walba maalinta ka dambaysa ayaana ka sii qurux badan oo ka sii fiican oo kana hagaagsan. waxaan rabaa marka mashruucan dalkani wuxuu doortay modelka ama qaabka muunada ee ah dhaqaale ay hogaaminayaan private-ka ama ganacsatada in uu noqdo modelka economic development-ka dalkan private driven economic development model oo ah modelkaas hantida dadka Soomaaliyeed oo dhan leeso keeno. ganacsatadana waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinaynaa inay dadka Soomaaliyeed oo dhan ka qayb galiyaan ee ayaga intooda wax haysata kaliya inta wax isku dardarsadaan aanay hore u soconin ee dadka Soomaaliyeed kuwa waxoodu meel dhaxay yihiin kuwa hooseeyaan iyo kuwa u yar. halkan waxaad ku arkayseen in mashaariicdan halkan laga hadlayo maanta airport cusub leh dekada cusub leh maxaan ku raadin economic zone kale dhammaan ilaa 100 milyan oo share in ay ka koobnaan doonaan oo dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba loo bandhigi doono in ay uga qayb qaataan mashaariicdaas. maanta biri sanadka dambe sanadka si dambe 10 sano 15 sano intii soo socoto dhan in mustaqbalka hadii la yiraahdo sababta 100 milyan looga dhigay shareerka iyo sababta $30 iyo $5 iyo jarjar yar looga dhigay shareerka qiimihiisa waxay tahay waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed oo dhan mashaariicdan inay wax ku yeeshaan. waxaan rabnaa oo fikirkanagu yahay in wiilka Soomaaliyeed ama odaga Soomaaliyeed ee gaari gacanka mooska iyo qudaarta ku dulhaaya ku dul iibsanaya inuu ka gadan karo share mashaariicdan. waxaan rabnaa hooyada Soomaaliyeed ee suuqa joogta ee bacadlaha leh ama maxaan ku yiraahdaa ganacsiga kale yar leh in ay iyaduna iibsan karto share oo ay ku dacwo karto ama ku faani karto dhigto waxbaan ku leeyahay. dekada airport-ka caalamiga ee Muqdisho iyo dekada iyo maxaan ku yiraahdaa economic zone-ka iyo mashaariicdaasaan wax ku leeyahay anigu inay dhigi karto ay dareemi karto inay wax leedahay. waa soo dhaweynaynaa dabcan ganacsatada waaweyn inay meesha maal geliso xoolo badan ay geliso waa soo dhaweynaynaa
caalamka iyo shirkadaha caalamka in ay yimaadaan oo ay meesha ay maal gashadaan laakiin waxa uu asala waxu Soomaaliya ka jiraan dadka Soomaaliyeed waxaan inay waxoodii ay yihiin oo ay leeyihiin inay dareemaan ayaa rabnaa waxaan diidanahay waxa in uu noqdo property waa national strategic asset waxa aan ka hadlaynaa ma aha muxuu ahaa ganacsi yar oo shirkad yar ay leedahay ma aha sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed inay dareenkaas ay lahaadaan haddii uu yahay kaas ganacsadaha ugu hooseeya ah kan dhexe iyo kan ganacsadaha ugu sarreeya inuu sidoo kale caalamkuna inuu dareemo inuu wax ku darsanayo Soomaali ee hal shirkad iyo laba shirkad iyo aanu wax ku darsanayn ama dawlad oo wax ku darsanayn dadka Soomaaliyeed oo dhan meel kasto ay joogaan dal iyo dibad inay wax waxaan rabnaa hooyada Soomaaliyeed kista yarta ah ee hagbada ay ka hesho in ay sheer ku gadan karto markay u soo aruurto hagbada ay qaadato inay New Mogadisho International Airport inay sheer ka gadataan rabnaa oo ay gabdhaha Soomaaliyeed hagbadooda meesha ay markay u soo aruurto ay dahab ku soo gada iyo maxaan ku raadaay ay uga fikiri jireen inay uga fikiraan maalgashiga dalka uga qayb gal investmentiga dalka uga qayb gal inay ku sii fikiraan oo ay ku galaan hagbada iyo shalongada hadii la yiraahdo waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed $35 ama $36 wax yar inay tahay inay u arkaan horta waa 100 milyan oo boqolaal share iyo kumanaan share iyo malaayiin share aad gadan kartaa hadba awoodaad inta ku saamaxdo waa qodob waa hubaa shareka $35 jooga hadda marka la bilaabayo dhismaha airportka magaalada Muqdisho maalinta airportka magaalada Muqdisho diyaaradda ugu horeysa ay ku soo degto sharku $35 ma ahaan doono waa qodob oo beesadaadi yaa ku kordhisay immediate yani wax immediate oo taabo karo practice-kaas waa soo aragnay shirkadaha Soomaalida ah ee maanta jiraan ku soo aragnay maalintii la asaasiyay dadkii lacagaha ku darsaday 3 sano kadib 5 sano kadib 10 sano kadib meelaha ay qiimihii value shareka oo gaaray iyo inta lagu kala gadanayay waan ogeyn waana soo aragnay waana u taagnay maalintii la asaasiyay dad badan oo ku darsan kara wax ku darsan waayay ayaa maalintii dambe waxay ku iibsadeen sheerarkii ayagoo 10 jibaarmay ama 20 jibaarmay ama 100 jibaarmayba ay iibsadeen markii dambe maanta aad fursad leedahay qof kasta Soomaali ah meel kasta uu joogo ha qaato muxuu ahay sheerarkaas mashruucan airportka iyo dekada iyo free zone-ka iyo magaalada cusub ee Muqdisho cusub ee sameysmi doonto ummadda Soomaaliyeed waxaan u ballan qaadaynaa Ilaahay idinkiis way dhaboobaysaa waa jiray way dhaboobaysaa waana airportkuna waa dhismayaa dekaduna way dhismaysaa economic zone-kana waa dhismayaa Ilaahay idinkiis laga gaabin maayo sidii ay ku dhismi lahaayeen oo sida wanaagsan oo haddii si dhib badan u yimaad xitaa ay ku dhismi lahaayeen ay ku dhaqan geli lahaayeen dhammaan waa wax aad iyo aad looga fikiray oo muddo dheer maskax shiil badan la geliyey way samaysmay waxaan marka dadka Soomaaliyeed inaan u sheego lacag yaraan meeshaas ku darsaday waana ka sii socday ma aha shareska aad meesha ku leedahay waxay kuu noqdaan kuwa aad ku hesho hubantiyo ama garantii intaasoo sheeraan meeshaas ku leeyahay bangigu deyn waa kugu siinayaa qof waa kugula shirkoonayaa yacni magaca iyo dokumentiga aad haysataa valuegiisa wax badan oo kale kuu furfuraaye inaad meeshaas sanadka markuu dhammaado waxoogaa yaroo faa'iido ahoo maxaa ka soo dhaca basaad sugaysaa ma aha macnaheedu waxyaabo badan oo kale ayay fursad kuu siinaysaa marka aad tahay qof sheer kule mashaariicdaas waxaa intaas dheer qiyaas inta qofood ee Soomaalida ay shaqo ka helaysa inta qofood ee Soomaalida shaqo ka helaysa kama wado airportka kuwa subaxdii u shaqeeya ee civil aviation-ka u shaqeeya ama wasaaradda gaadiidka u shaqeeya cirka ama maxaan ku iraahday ganacsiga yarka oo cafeteria ama free duty shopka meesha ku leh ma aha meeqa shidaalka geli doonta diyaaradaha
meeqa baabuurta airport ka shaqeysa shidaalka geli doonta meeqa spare part ka geli doonta meeqa raashin la cuno ka geli doonta meeqa biyo siin doonta meeqa gaadiidkooda oo u shaqeyn doona meeqa malaayiin dada oo Soomaali ah hadda muga la weydiiyo saaxiibadeen waxa laga yaabaa yaa shaqo ka helay muga inay yiraahdaan 60,000 50,000 100,000 oo qof shaqo ka helaysa laakiin ma aha waa in ay dad malaayiin oo badan noloshooda ay wax ka bedeli doonto waxay doon mashaariicdan iyo kuwa kale ee ku soo xiga ilaahay idankiisa New Mogadishu Development Corporation at aragteen waa tijaabadii ugu horeysay Soomaaliya ay gashay laakiin mugay ku guuleysato maybe dawlad goboleed kasta inay muxuu ahaay Development Corporation inay yeelato oo mashaariicdeeda iyo waxeeda iyo horumarinteeda ayadana markeeda ay ka sameysmaan dawladda dhexena ay taageerto oo ay garab istaagto oo Soomaaliya oo dhan aanay hal dhinac bas u dheeraanin horumarkeeda horumar wada socdo oo muxuu ahaay Development Corporation ka jira Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Puntland in la arko mid national ana oo marka dambe uu kana uu noqdo kani waa national of course kuwaas kalena sidoo kale way noqon doonaan way iman doonaan soo waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed ha isu diyaariyaan mashaariicda horumarka aniga iyo inta ila midka ah waxaan soo joognay waayo Soomaaliya qof private ah inta dibadda aado aanu badeeco ka keensan karin oo wax kasta oo dalka ka jiraahay ay qabato hay'ad dawladeed wakaaladda alaabta dhismaha wakaaladda maacuunka wakaaladda gaadiidka wakaaladda maxaan ku yiraahdaa wax walba qofka Soomaaliga u furan bas inuu wakaaladaas inta alaab ka soo qaato maxaa dukaan yar meel ka furta ee uu qaybiyo oo ayadana aad ogeydeen inta saf dheer loo soo galo subaxii dhagaxa iyo gazaca iyo meesha ECD sokorta subax mug dukaanka la furo aan helay la yiraahdo waayahaasi taariikhdeena ku jiraan waa noo qoran yihiin inaan soo marnay meel ay noo yaalaan laakiin waayo soo noqonaya ma aha ilaahay idankiisa maanta oo dhibaatada aad aragtay iyo duruufaha adag ee dalkan u soo maray marka istatistiikada iyo maxaa dib loogu noqdo iyo muxuu ahaa qiimeynta dalkani wax badan oo ka maqan waa jiraan oo khaasatan wixii dawladnimada ayaa weli naga gaabiya gaabskana public wixii ah laakiin sidaas ay tahay midna public adeega waxa kamid ah tacliinta kamid ah ardada Soomaaliyeed ee iskuulka aad dhamaantay in badan laba jibaar iyo ka badan tahay kuwii iskuulka aadi jiray dawladdu markay jirtay dhaqaalaha maanta la sheegaya ee yarka ah ee sanadahan soo soconay marka sidaas daraadeed waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee mashruucan maalgashan inuu sheego sanado yaraad lacagtiina ay ku soo noqonay ma aha mashruuca maalgashan ee ka sugo sanado baahida loo qabo adeegyadan oo aad u badan awgeed iyo fursadaha ka jira oo aad u badan awgeed oo ay keenayaan dadka Soomaaliyeed dabeecadooda iyo muxuu ahaay dhaqankooda oo ay keenayaan mowqica ama locationka Soomaaliya ay ku taalo waa ilaahay mahadiisa oo ilaahayna dajiyay keenaya ayaa waxay keenaysaa rate of return of investment inuu mid aad iyo aad u degdegay inuu yahay marka xasoo haray wasiir bixina dadku ka dhawaajiyay noloshu sideedaba waxay wadataa risk qatar badan ayay noloshu qofka caadiga ah ay u leedahay iska daa midka hanti meel geliye oo dad kala duwan hantidooda isu keenay oo raba in uu horay u socdo ganacsatada Soomaaliya waa qatar waa kaas waa laga yaabaa in dadka qaankiisa qabiga ku jiraan ma diidayna laakiin waa intee meesha aanay qatartu ka jirin meesha oo 100% meeshaan qatar ka mid jirta la leeyahay waa intee caalamka ku taal maanta banaan baxyar hadoo dhacawaad aragteen waxa adduunyada baaba'ayo oo gubanayo oo haraagmay banaan baxyar hadoo dhacawaad aragtay shaqooyinka istaagayo oo aan soconayn
وارون عيمسكو وحكم مديهي عقبضها نايستو كمديهي لكن هذا هال عيمس أو وحي والا ناشينالايز غريي maxaa ahay siyaasadii saan yeeshay iyo in la mid ahaan hadda horta caymiska haysana wixii waa dhunno waa soo noqdeen in badan oo kamid ah caymisadeena yar yar kaan way ku filan yihiin kuwa kale caalami ah way noo soo socdaan laakiin riskiga ugu weyn waa maxay riski jiraba sidiisa ugu weyn riskiga jira ugu weyn waxa waaye waxba ha suubin meel iska fariiso xoolo ka dhumi maayaan بس هذا كيش أنت كل حاجة بركيت الله كذا قشتت حتى مريسك لا توجا كو إيمان وكاد عيا بنجي هذا ده تبنجي هو خسارة كرا والريسك العام ولا اللي ما جرتئه ريسك قاعدة شديد أي هبون تاي أي مدن تاي أنقلنا أو أهمك عن أرجنا أو أتكون معاشتين جناح ستدين رك بدن أو جناح ستاه أو ماشى فديه وحي هايستان الله أبديه أنا بلاري أنا بركيه riskiga iyo qataraha ay qaateen awgood ayay waxa ay haystaan maanta ku heleen inta waa riski xagga dagaal sokaya ka jiro mooryaana inta ka imaan kartaa ku dhici karto balaaya inta ka dhici karto haddii qof walba inta yaraa meeshiisa uu joogo lahay Soomaalidu maxay ka tiri arrintaas bartiis yaqaan bari uma kororto xoogaagan yarka waa haystaa waana aqaanay aan ku dadaalo haddaad tiraadi beesadu markay meel fariisato ma dhasho beesadu waxay dhashaa markay socoto socodkaas ayaana riskigana leh faa'iidadana leh waana isbarbar joogaan waxaan rabaa markaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto in ay u jeestaan dhinacaas horumarka dhaqaalaha haybadda sharafta iyo wanaagga mashaariicdan بس على جهل يا لجفا إذا يا يوم حانكو لا شقة على جهل يا بس معها هيبة ذا كجرته وعلو كلا قيمين يا مركب مال قشن يالو أطلع جفته يا مركب إيه وحبابك كقولنا لكن مال نظيفه وقشن كنا كلا اللي هي أجفته لسدينا وكلا معنا بدن تاعي marka aad dhar nadiif ah wadato ma aha dhar qaali inaad wadato ma dhar nadiif ah markaad wadato iyo dhar oo wasaq ah markaad wadato waa kala macno badan yihiin dharkaagu hadduu nadiif iyo duug yahay ama oo dhar muxuu ahay raqiis yahay waa lagu garaabaya wax ma haysto waxba ku yar laakiin dharkaagu adoo dhar qaali ah haysto markuu ka wasaqaysan yahay lagu garaabi maayo dhar qaali aan haysanaaya aan nadiifsano Soomaaliyeed dal qaali ah meel qaali ah ku yaal khayraad qaali ah oo fara badan leh dad qaali ah oo maxaan ku ibdaaciyad iyo maxaan ku hal abuur iyo horu socod leh yaan haysanaaye aan intaan isku toosisano aan hagaagsano meelaha isku toosintu ay naga laadayna waa meelaha babliga dawladnimada khuseeya siyaasadda khuseeya dawlad dhiska khuseeya waxa dawladdaas ku hoos jiro dhamo amni leh oo adeeg bulshada oo leh khuseeya way aan ka shaqeyno aanan ku mashquulno muxuu ahaay inahaas si aan u gaarno ummadaha nala midka ah meesha ay gaareen si aan u gaarno aad iyo aad ayaan mar kale idinku hambalyeynaya bogaadinaya waxaan rabaa inaan aad iyo aad u hambaliyo raggii iyo gabdhihii ka soo shaqeeyay mashruucan sida data laga shaqeynayay 5 sano hadaaqiisu u soo socday iyo ka sii horba muqdisho in airport cusub loo dhiso dawladda intaanay burburin ayaa hamigeedu jiray muqdisho in airport cusub loo dhiso airportkan laga guuro maalintii aan airportkan maxaan ku raadaay shirkadda Favori dawladdu ay ku heshiinaysay terminalkan inay dhisto ay waxaysan maanan u dhisaynin inaan ku sii nagaano intaan meesha cusub aan ka sahminayno u guurayno u helayno fursadda inaan meel sii quruxsan oo yar oo suurtagal aan sii joognay waa ku soo meel marnay maalintii 2015 airportka la xarig jaray iyo maanta isku mid maaha
diyaaraduhu isku mid maaha, dakhliga dowladda ka soo galaa isku mid maaha, adeega bulshada ay ka heshaa isku mid maaha, ganacsatadu faa'iidada ay ka heshaa isku mid maaha. haddana meeshii inaan ka sii kacno oo meeshii meel ka weyn aan sii gaarno ayaa ujeedadeenu tahay. New Muqdisho Development Corporation corporation yaroo maxalli oo Soomaalida bas ku kooban ma aha, waa corporation aan rabno ganacsatada caalamka iyo maalgashadayaasha caalamka ah inay yimaadaan Soomaaliya ganacsigeeda iyo fursadaheeda. waxaan rabnaa in la wada lahaado. islaanta aan sheegay Soomaalida ah ee gabadha Soomaaliya ee hagbadda waxa yar ka soo qaadata laga soo bilaabo ilaa dadka milyaneerada ee Soomaaliya ajnabiga leh in la wada lahaado. waxaan rabnaa inaan horseedno ka shaqeyno Soomaaliya la wada leeyahay, Soomaaliya fursadaheeda la wada leeyahay oo aan ka reebanayn. Soomaaliya waxay home ama guri u tahay dadka Soomaalida ah oo dhan, meel kasta ay caalamka kaga nool yihiin ayay guri u tahay halkan inay maalgashtaan, yimaadaan, degaan ku noolaadaan. sidoo kale qof kasta oo aan Soomaali ahayn oo ajnabi ah oo dalkan raba inuu yimaado oo maalgashado, inuu mucaamalo fiican, martigelin fiican, ilaalmo fiican oo xoolihiisa la ilaaliyo. xoolaha kuwa Soomaalida iyo kuwa ajnabiga ah qof ma ilaali karo, nin madaxa ma ilaali karo. waxa ilaali kara waa qaanuunkii waa sameynay, wixii ka dhimano intaa wax ka dhiman yihiin la yiraahdo waa dhammaystirayna. kuwa aan sameynay meeshaan ay uga baahan yihiin xogaa yar in adjustment lagu sameeyo haddii la yiraahdo waa sameynayna. qofka imaanaya waxaan in loo fududeeyo u baahan yahay waa fududeynayna. waa run meelo badan weli sida aan rabnay ama jeclaan lahayn inay u shaqeeyaan wax uma shaqeeyaan, laakiin waa ku daba jirnaa, waa daba soconnaa, waa daba taagannahay. maalin walba meel baan rabnaa inaan ka kicinno ilaa ay muxuu ahay isla wada dhaqaaqo. aad iyo aad u mahadsantihiin. Soomaaliyada cusub iyo Muqdishada cusub iyo wejiga cusub ee Soomaaliya ay yeelanayso iyo fursadaha cusub ee Soomaaliya ka furan intaba dadka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka waxaan leenahay ku soo dhawaada. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.